laba kun iyo siddeed iyo tobankii waxaa la weydiiyey waxaa idin hor fadhiya muddo 30 sana idinkoo dal Yuruba ah hogaamiye isu kin bedbedelaya maxaa dhaca la wiil waxay ku jawaabeen shacabka Ruushku hogaamiye reer galbeedku u yeeriyaan oo jeebka ugu jiro oo dastuuri intuuna hogaamin lahaa nin qawi oo dictator inuuna hogaamiyaan ka doorbidayna reer Jubbaland inay second class citizen Soomaaliya ka noqdaan waxa uga khayr badan oo uga faa'iido badan inuu Axmed Islaam sii hogaamiyo ilaa inta dalka Soomaaliya dawlad la isku raacsan yahay ay ka dhalanayso oo dawlad nin matali kara marka anigu waxaan aaminsanahay xilligii laga bedeli lahaa iyo goortii uu ku beegnaa in Axmed laga bedelo xukuumadda Jubbaland maanta ma aha haddii kilomitir la sheego Kismaayo iyo magaalada Bu'aal hadda nin walba Google Map ka geli waa 280 kilomitir isku jira horta ta dhulka waa saas oo taasan ka gudbaya midda ah dawladda Jubbaland ma soo dhaafto magaalada Kismaayo dawladda federaalka Soomaaliya ay iska lambar 4 ma dhaafto ciidanka ATMIS ee dawladda waxa ilaaliya gabigeediba dalka dhan ee Soomaaliya la yiraahday kilomitir 4 ma dhaafo maamulkan Jubbaland la yiraahday muddo dheer buu soo maray meelo kala duwan buu soo maray anigu horta shakhsiyan waxaan aaminsanahay xilligii Axmed Islaam Jubbaland laga bedeli lahaa maanta ma in maskax fareesha la keeno oo timaado oo Jubbaland ay hogaanka u qabato way ahayd laakiin tamaanta taala maleeshiyada iyo maafiya wiil yar oo qurbaha ka yimid oo siyaasiya oo dalban horumarinayaa leh horta turubka maanta yaala lama dhigi karo xaqiiqo laga hadlo oo marka run laga hadlo oo xaqiiqada taala laga hadlo haddii la rabo in laga dhigo class B second class citizen Jubbaland oo sida saddex maamul ee kale jira aan hadalhayn ayna yeelan ama ayna saameyn ku yeelan dawladda federaalka ee Soomaaliya waa run way in yar qurbaha ka yimid oo Minneapolis intuu ka soo tagay dheekeer uga furan tahay oo kolba loo yeeriyo in loo dhiibano qabo waxa runa deegaanka Jubbaland la yiraahdo ama Jubbaland State of Somalia waa gobolka horta Soomaaliya ugu qanisan ugu nimcada badan in nin walba oo deegaanka tagan oo qaybsigeedina lagu qaybsado siyaasadeedina la hormariyo laakiin hogaan qawiya Ruushka 2018 waxa la weydiiyey waxa idin hor fadhiya muddo 30 sana idinkoo dal Yuruba ah hogaamiye isu kin bedbedelaya maxaa dhaca la wiil waxay ku jawaabeen shacabka Ruushku hogaamiye reer galbeedku u yeeriyaan oo jeebka ugu jiro oo dastuuri intuuna hogaamin lahaa nin qawi oo dictator inuuna hogaamiyaan ka doorbidayna reer Jubbaland inay second class citizen Soomaaliya ka noqdaan waxa uga khayr badan oo uga faa'iido badan inuu Axmed Islaam sii hogaamiyo ilaa inta dalka Soomaaliya dawlad la isku raacsan yahay ay ka dhalanayso oo dawlad nin matali kara hadda waxa la mid wasiirkii duulistii hawada Omar baad la matalaysaa ayaa la leeyahay Jubbaland buu hogaamin xaguu geyn soo u sii socdo wuxuu dhex geenayaa filla Soomaaliya Kismaayo waxa looga tarin doonaa wallahi oo billahi oo talaa Kismaayo waxa looga soo tarin doonaa go'aanka laga gaari doonaa Xasan Sheekh Maxamuud oo soo talinaya marka anigu waxaan aaminsanahay xilligii laga bedeli lahaa iyo goortii uu ku beegnaa in Axmed laga bedelo xukuumadda Jubbaland maanta ma aha ta kale ee ah ma Kismaayo soo dhaaftana Sultan adoo sii wadanaysid maya Sultan adoo sii wadanaysid waxaad leedahay musharaxiinta sida Omar Cabdi Cali Raage mataqaanaa xidig musharaxiintan badan ee socota waxaad leedahay ayagu uma qalmaan oo xafiiska uma qalmaan baad leedahay ma dad kala wataad leedahay saad u dhigi kartaa Axmed baa mataqaanaa waxa sii wadi kara min ayagu dad meesha u dhashay aan kaaga jawaabayna Romaya anu ragga midna waxba kama sheegno ma durno siyaasadooda midkoodna ma arag laakiin siyaasadda maanta taala ee Soomaaliya taala waxa weeye war jaraha iyo siyaasadan laga ciyaarayo yaa ciyaari karo yaqaan dawladda federaalka Soomaaliya Puntland baa waxaad aragtay isku dayday inay Saciid Cabdullaahi Deni wadada ka wareejiso ma jarateen waxay u liqeen iyo Puntland shacabka joogay inuu Saciid Cabdullaahi Deni yimaado ay kii nacbaa iyo kii jeclaaba waxay u daba istaageen waayo marka xaqiiqo laga hadlo maanta jiritaanka Jubbaland Axmed bay ku xiran tahay miya Axmed bay ku xiran tahay marka loo fiiriyo Axmed bay ku xiran tahay absolutely ina roo kugu soo celinaya waa maasantahay waan wareejinaynaa si mataqaana ha halka qaado general halka ka qaado